maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa dhawaan waxay ogolaatay in maxkamad la soo taago General Maxamed Ali Samatar oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda kacaanka Soomaaliyeed. dibadbaxyo kala duwan oo looga soo horjeedo maxkamadaynta ayaa waxay ka dhaceen qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya. haddaba magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha gobolka Mudug, duqa degmada Gaalkacyo, taliyaha ciidamada daraawiishta gobolka Mudug iyo dad aad u tiro badan. haddaba dibadbaxan looga soo horjeedo maxkamadaynta General Maxamed Ali Samatar ayaa magaalada Gaalkacyo uga dhacday si nabada, waxaana dadkii dibadbaxayay socod dheer ay ku mareen wadooyinka magaalada Gaalkacyo. intaa kadibna waxay isugu yimaadeen wajahada hore ee xafiiska gobolka Mudug. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Mudug ayaa halkaa ka jeediyay hadallo ay ku taageerayaan dibadbaxa, sidoo kalena ay ga soo horjeedaan maxkamadaynta Ali Samatar lagu wado. duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Maxamuud Xaaji Xasan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay dibadbaxa. waa arrin madabtakoora, waa arrin maartay isir sooca, arrintaas arrin ugu qalbo maartay General Maxamed Ali Samatar maahan. insha Allah sidaad maartay ugu xumaatay maano ugu xunahay ama maamul degmada ha noqoto ama gobol ha noqoto insha Allah maahan waa wax umadaha Soomaaliya oo dhan u dhaxaysan weeye. arrin khaas ah adigu aan iskaga dhiginina, laakiin dadku shuruudooda inay muujiyaan oo loo muujiyo cidda dhibka geysanaysa waa shay waajib weeye. waxaan leenahay cidda arrintaas ka shaqaynaysa oo juhdiga ku bixinaysa oo dhaqaalaha ku bixinaysa oo waqtiga iskaga dhuminaysa ha iska daysa arrintaas. arrin maartay u suurtoobaysa maahan. gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad ayaa isna ka hadlay dibadbaxa looga soo horjeedo maxkamadaynta General Ali Samatar. ay ka soo horjeedaan annagu maamul ahaan waxa dadka iyagu waxa ay doonayaan baanu doonaynaa, annaguna waanu aqbalay. sidaa darteed waxa weeyaan Soomaaliya waxa ka dhacay burbur ballaaran oo baahsan. waxa weeyaan waxa dambi galay kumayaal dad ah baa dambi galay xasuuqa ka dhacay Soomaaliya. Ali Samatar miyuu ku kooban yahay? maya. waxa weeyaan maxkamadda caalamka iyo dawladda Mareykanka ee hadda magaalada uu u joogo Ali Samatar iyo dhammaan caalamka waxaan u sheegaynaa haddii wax la maxkamadaynayo in la sugo Soomaaliya marka ay dawlad noqoto. si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay ee magaalada Gaalkacyo uu ka dhaco dibadbax looga soo horjeedo maxkamadaynta madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya, kaasoo dacwadiisu ay dib uga bilaaban doonto dalka Mareykanka. Cabdiladiif Cabdiraxmaan Warsame, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Gaalkacyo.